بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku duubayaa sidee study area lagu samaystaa ama sidee map area iyo local area iyo issue ka rabto mapka inaad kula soo bixi karto lagu samaystaa GIS-ka. marka waxaan soo furnaa marka hore inaan idin fahansiiyo software-kan waa bilaash. waxaa ka soo deji kartaa website-ka lagu magacaabo qgis.organization oo u samaysan mid free ah, community established ah. marka wuxuu ku soo saarayaa donation samee. marka ana waxaan leeyahay skip and go to download. automatic wuxuu igeynaya marka download site-ka. markuu igeeyo qaybahan oo window-ga ah ayaan ka rabaa aniga. qaasatan noocan hadda lagu magacaabo long term release ayaan dooranayaa. noocaas aniga soo dejisanaya. issue-gaas marka waxaa kaloo muhiim ah inaad taqaano mapiska meelaha laga helo si free ah. waxaan ku qasbanahay inaad mapka website-da laga heli karo ka soo dejisano. inta hadda waxaan ku qoranay Diva GIS. Diva GIS kaas waa website aad ka heli karto. waxaan kusii dhifto waxaa laga heli karaa wixii data ah oo map issue oo caalamka dhan ku saabsan. haddii marka Soomaaliya rabno inaan wax ka qorano ama kala soo baxno mapka state area-gana waxaan ku qasbanahay inaan mapka Soomaaliya soo dejisano. marka inta laga soo dejisan karaa naftigeeda by country ah. marka meeshaan ay ku qoran tahay marka wasaas noo soo furno kadib in this area oo country ku qoran tahay waxaan ka dooranaynaa Soomaaliya. markaan Soomaaliya ku dhufano isla markiiba waxaan ogolaanaa mar la inaan doorano waxa marka daraasadan ku saabsan. mapku kala duwan yahay. mapiska qaarkood waa administration areas biska ah iyo regionalka iyo waxaasna ku kala sheego. mapka qaarkoodna inland water meelaha biyaha celiska ah oo markaan environment-ga climate-ka iyo issue of water markaan daraasanayna oo muhiim tahay. ruleska mid kasta marka issue elevation xataa ku jira dhul kala sareyntiisa waxaan markaa mapis hor loo diyaariyay laakiin adiga study area section ka rabto marka kala bixi karto xataa waxa ku jira population ku jira. marka administration iraado automatic wuxuu soo saaraa marka zipki oo dhameystiran. naqshada kale oo muhiimka ah oo aan rabo inaan idin sheego waxa kamid ah nooc ka fiican oo laga helo humanitarian website-ka data exchange ilaha humanitarian data exchange khaasatan subnational administrative boundaries-ka. haddaan kusii dhufana kan wuxuu na geenayaa toos noo geenayaa waxa lagu magacaabo daato oo kii hore oo kale ah laakiin ka advanced oo Soomaaliya ku saabsan ayuu nasiina zip ah oo mapkii oo diyaarsan ah. marka issue wax kale lagama rabo in layers-ka aan ku diyaarsan doono website gudaha aan noo fudaado. marka shadayga waa ka horeysa inaad data ay ku soo degto kadibna download-ka aad ku samayso install aad ku samayso. marka installation-ka waxaad dhamaysato inaad gudaha u gali karto. waa kuwana marka afar nooc oo file ku yimaada. noocan iyo noocan labaad aan ka rabaa. noocadan kale waa jiraan laakiin nooca labaad ay ka waran tahay some admin boundaries laakiin waa shape file. waxaan ka rabaa waa naqshadaas shape file-kaas ayaan soo dejisanaa. markaan soo dejisto kadib marka waxaan aadayaa directly inaan software-kii aan baray. hadda ma raba inaan mar la idinku celiyo laakiin software-kii aan computer-ka baray inaan toos guda galo oo aan yiraahdo datadaas aan la soo baxo. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka bilaabayaa GIS qaybtii hore waxaan ku soo sharaxay sida loo soo dejiyo software-ka. halkan waxaan galeynaa marka software-kan sida lagu shaqeeyo markaan rabo inaan study map-kii aan la soo baxo ama markaan rabo specific map oo aniga aan daraasinayo ay nooc kasta aan ka daraasay inaan la soo baxo. marka inta wuxuu ka samaysan yahay title bar oo iska taqaana. halkan waa menu bar. halkan waa toolbox-ki ama toolbar-ki. halkan waa panel-iska oo isku jira browser-ka iyo layers-ka. halkan waa status bar-ka oo measurement-gii waxyaalaha qaarkood aan ku cabirayo ku jira. ana waxaan ku qasbanaa marka inaan doorto new product oo mid cusub aan dooro. markaan cusub doorto marka inta wuxuu soo saari doonaa blank oo meesha aan soo dhigan doono mapka. halkan waa layers-ka waxaan soo upload gareyn doono oo mapka aan rabo inaan wax kala soo baxo inta soo dhiga doona.
saasa marka uu shaqeyn doona intaan wax ka caadi project title-ka edit-ka view layer-ka halkaas layer-ka kaga duwan yahay wax kasta oo layer ku saabsan wixii la soo gelinayo maps ah oo lagu shaqeyn lahaa ayaa ku jira sentinel intuu leeyahay polygon vector raster labada marka raster iyo vector-ka labada waa laba documentiyo oo la soo geliyo lagu dhex shaqeeyo QGIS gudihiisa midna waa image midna waa shape file oo u samaysan nooc shapes ah database-ka oo haddii u baahato in la soo xiro website-ka waxaas oo dhan marka wuxuu leeyahay isku xiran ana waxaan ka rabaa marka inaan data soo geliyo oo map ah oo aan kala soo baxo specific area aan rabo kadibna aan publish gareysto aan daabaco sawirkaasi si aan u isticmaali karo study area-da anaga marka waxaan leenahay waxaan ku qasbanaa inaan tagno layer kadib aan lahayn add layer intaan oo dhan waa files nooc aan rabno inaan soo gelino ana marka noocan kulli ma isticmaalo laakiin halka mid isticmaal doona oo nooca loo yaqaan vector layer-ka haddii aan rabana waxaan dooran karaa halkaas meel ay ku qoran tahay open data source-gaan manager-ka ama control L haddaan yiraahdo soo fira labada nooc waa loo isticmaalaa kan haddaan ku dhuftana documentiga wuxuu isoo saaraa file ku soo gashan lahaa waa kan toos ugu furaya data source manager-ka vector-ka ama qaybta vector-ka qaybta guud ahaan mar haddaan yiraahdo layer add layer haddaan yiraahdo waa la mid waa kan intaan file aan sheegayna inta ku jiraan kulligood GBS waxaa soo gelin kartaa GBS-ka text oo Excel format-ka aan soo gelin karnaa waxaan noocaan oo soo xareyn karnaa ana marka waxaan rabaa inaan soo xareeyo nooca vector-ka waxaan ku dhufanayaa box-ka yarka waxaan raadinaa marka file-ka aan soo xareysan lahaa wuxuu yaalaa download-ka waa kan file-ka aan rabaa inaan waxa u dambeeya file-ka shardi ah .shb oo shape file ah waa jiraan file kale oo gdb ay ku qoran tahay ama geosom ay ku qoran tahay file-shaas oo dhan ma rabo laakiin waxaan ka rabaa inaan file shape-ka ku shaqeyn karo waan hore soo dejistay waa map-kii Soomaaliya oo detail ah soo xareey marka add layers ka dhammaan soo xareey layer ka dhammaan automatic wuxuu xareyn ay geyn doonaa halkaas oo dhigi doonaa markuu layer halka ay soo dhigo markaas aniga kan iska kala gareena u baahni hadda shaqo ku jira waxaan diidaa inaan shaqo kale ka shaqeeyo oo aan ku dhuftaan diidaya waa isoo dhigay kana marka loo iska leeyahay kulli marka waa kuwana mapki aan marka kulli waxaan ka qaadayaa saan u kala fahmo nooca aniga ee muhiimka ah iyo nooca aan muhiimka ahayn kulli waxaan ka qaadayaa tagta markaan kulli ka qaado mapku wuu lumi doonaa la yaabin mapku meesha ka bixi doonaa laakiin ani kaan rabaa ku dhufsan doonaa هذا كان فيري ما يعرف يلا فيري ما يعرفكم يلا حكوا يلا فاليوز وبهني كانوا كلاني كان في دبعية وكل اسمه وبهني كان السفر دبعية وبهني كان وباي ديستريكت وحرام وحلي شو ليبل إنه قاعد يسوي صار عين كله ويسوي صار يا عبرات كله مر وبهني كان Soomaal shapes-ka maps-ka aad ugu shaqeeyay naftigooda waxaan leeyahay names-ka saar wali waa la mid kana waana u baahanaa ma kan waa dhibcood degmooyinka oo ku soo waraasay bullets u sawiray kan waa kan marka hadii uu leeyahay magacyo aan waxaan ka labayn magacyadii by district ugu jiro dareesan u salayn malaha kana waa la mid على show names مقاعد ملها نعرف أنا فيها كان السوق كلام مقاعد ملها حنقول فنا كمرك كان حسليها مقاعد وليه فيري exactly كان وليه هاي دقموين قولة مقاعد وليه كان مركز ربعنا separately ولا صبحه أنقوني كدكتور region كأن ربنا كلا صباح مرة أنا سفهنا محل صباح أنا محل ربنا صباح لبا قبل صالح صباح الشباب لو كله وحكي سمعت لبا قبل هيران يحكي سمعت بلا شباب لبا على صباحه السبرة كليو كلا بدو كوا برك أنا كل صباح يكرر وإن هايلايت جري على لبا قبل وح استعمالها تابل كي كجران مقعدة كجران هذين بحلقهم قعبة أو attribute تابل كم كحران تابل كم كحران هذين أنصايا لي ولكن تابل كان أنت مقعد ماشي كقرن كل واحد قريه أنت قريه
أنا مركب حسمينا يا إن region كا هل كان صار قال صار أنتي أقول فتو arrange كسمايو كدبنا أن راديو لبدا region أخو waxaan rabaa hiiraan waa saddex degmo ka soo qaatay waa Beledweyne Bulebarte iyo Jallaqsi mid Shabeelle aan tago Shabeelle dhexe afar degmo ka soo qaatay Aadan Yabaal Balcad Cadalle iyo Jowhar waa hel garay marka waa ka noqonaa marka leesan labadii gobolaan rabay iyo degmooyinkii isaga soo xushay ma aha mid aan doortay ma degmooyinkii isaga soo xulay oo hor ugu jireen waxaan highlight garay marka area marka oo aan rabay inaan la soo baxo hadda waa highlight garaysanta waxa ku qasbana marka area inaan saf gareeyo aan iraado export ka saarta waxa ka saartaa mapka ka dhaxsa sabrada gari waxa leeyahay marka export save as select feature gooni gari gaan leeyahay magaca baxsanaa marka waxaan baxsanayaa map of two region sala ka wada bisaniyada ama Hirshabelle map of Hirshabelle state waxaan leeyahay safe okay aan leeyahay automatically layer kala cusub oo ii sameeyay marka layer aan fiiriso tan marka tagta ka qaado layer kaas uu ii sameeyay cusub oo ay ku qoran tahay labadii gobol iyo degmooyinkoodii ay ku qoran tahay waxaan leeyahay marka u fahmo tusaale show label magaca ku qoran waa tusaa magaca ku qoran uu tusay okay marka waxa sameysana marka in colorka aan ka bedesho colorkii hore kala duwan saaro oo ay raado dab jaalo ay fiican tahay saa hadda marka maadaama aan sabbeed oo soo baxay mapkan aan rabo inaan information ka diyaarsado qaadaya waxaan geysanayaa meel kale oo edit ku sameyn karo waxaan ku qasbanaa marka meel kale aan soo furto waxaan ku dooranayaa project waxa lagu magacaabaa new print layout oo nooca daabac kale iga dhig map of Hirshabelle state wuxuu soo saaraa marka paint shay oo eg oo meel yaala ana marka waxa sameeyay inaan soo geliyo marka mapkayga waxaan leeyahay add map add items marka doorto add map aan doorna automatic waxaan leeyahay halka idin mapku soo dhaxliga daarta marka waxaan sameeynaa inaan doorto move item contentiga oo aan mapkan aan jiido gees ka dhigo بس waxaan sameeynaa marka inaan shay kasto aan rabo inaan soo gashto waxaan u bilaabaa inaan soo geliyo qoraalka halkaas highlight gareena qoraalka aan rabo inaan soo geliyo waa dhiga qoraalka aan iska tira waxaan ku qorayaa qoraalka aan rabo inaan soo geliyo map of waxaan dooranaa fontiga waxaan leeyahay sodan ka dhig Times New Roman ka dhig kana Times New Roman ka dhig waxaan kala iska caadi waay waxaan ku noqonayaa qoraalkii tip of Somalia aan dhameystiro waxaan leeyahay center ku aadi انت ايمو waxaan doornaa gradiska duu aan sameyn karaa hadii kale gradis oo sameynaa gradiska oo uu leeyahay ama ka saar aad waxaan leenahay nooca external text banaanka way bix oo iga dhigay waxaan leeyahay coordination samee draw coordination numberada sina oo abraadka ilaayeen oo mapka kaga aadanayeen waxaan leenahay dismalka soo yare
لو واحد بحتاج كعادي وين مع صهر فريم وسماه waxaan kaloo soo haro dhan waa iska soo fudeynaa aan soo galiyo markaa legend kan soo galiyo legend waxa laga wadaa mapka magaciisa legendka wuxuu soo galiyay waxyaabo fara badan laakiin mar raba aniga waxaan ku dooranaa update waxaan leeyahay mapka oo ani aan doortay waxaan ahayn mar rabo ani waxaan samaystay map Hirshabelle intaan kala wada tira waxaan leeyahay minus tiran leeyahay waxaan soo haro dhan mar raba aniga minus aan leeyahay kadib waxaan ku noqonayaa magaca meeshaan ku qor lahaa title-ka waxaan ku qorayaa magacaas legendary-gaas waxaan ka dhigayaa fontigeeda sidaas ka ahaado isku qurux badan wax kale uma baahna font hataa uma baahna ana font raadina maahan waxaan soo gelinayaa oo kale iska dhaafkaas waxaan soo gelinayaa oo kale map direction-ka muhiim wuxuu yahay in direction-ka lagu fahmo marka inaad fahno north hadaa fahanto waa fahmaysaa labada kale waxaan u muhiimsan marka north side in lagu tilmaamo xagga qiblada ay xigto in aad tilmaan ka bixino inta barbarta leenahay si marka aad wax u bedeli karna iyo doon laga yeeli karaa sameeyna hadaan sameyn karno waa ka tagaynaa waxaan dooranaa arrows aan dooranayna midka aslana uu ku haboon yahay ayaan ka soo xulnaynaa marka waxaan doonaynaa mapkaas korna waa dhiganaynaa bes waxaan soo gelinaynaa iskaalka waxaan dhigaynaa hoostiisa waxaa leenahay afarka dhig baniyo waxaan ku darayaa inaan tilmaamo labada gobol magaalo madaxdooda waxaan siinay labada gobol calaamadood waxaan siinay red waxaan sameynaynaa inaan labada gobol kala calaamadeyno marka waxaan soo gelinaynaa nood kale على أي حال waxaan sameynaa markaa mapkaas weli wax qoraal wax ka doona ku dari karnaa oo qurxisa
waxaan ku dari karnaa hadda inaan regions kala cadeyno aan dhiraano Iran region waxay ka kooban tahay Beledweyne waxay ka kooban tahay Laburto iyo Jalalaqsi Bulabarte Jalalaqsi Medal Shabeelle waxay ka kooban tahay Jowhar Balcad Azalle Aadan Yabaan korna waxaan u bixinaynaa waxaan ka dhigaynaa 12 kadib waxaan leenahay kala jiid kadib waa safgaraynayna marka waxaan safgaraynaynaa in sawir uu noo noqdo oo aan dadka aan la wadaagi karno aan ka dhigaynaa tusaale hadda waxaan leenahay layout-ka export as image kadibna waxaan leenahay save sida hadda ku soo garaynayna waxaan leenahay save desktop-ku noo saara yes replace aan leenahay magacaas hore u jiray noogu bedel aan leenahay magacii hore jiray save isla markuu noo save garay waxaan aadaynaa meesha noo save garay saan aragno waxa isbedela ee muuqda karalaada marka hadda waa save gareeyay waxaan aadaynaa meesha ku save gareeyay desktop-ka awaakan as image u save gareeyay aragtan sawiraan u save gareeyay asoo furaynaa tusaalahan waa arag sawirkaas inaad ku anfacay in kale oo wax kale ku isticmaali karto in kale aan ka aragno inta marka image waa kan wuxuu noogu soo baxay si qurux badan oo arkaysaa inkastoo maapkii aan xagga saarnay uu soo yareeyay aad ma santiin insha Allah